magaalada Buuhoodle waxaa maanta ka dhacday xafladda caleemasaarka Garaad Cabdirasaaq Garaad Soofe oo si rasmi ah loogu caanashubay maanta waxaana xafladda garaadka ka soo qayb galay isimada dhaqanka Soomaaliyeed oo ka kala yimid deegaano fogfog siyaasiyiin abwaano iyo guud ahaanba dadweyne aad u tiro badan oo kor u dhaafaya kumanaan qof kuwaas oo wajiyadooda ay ka muuqatay farxad aan la soo koobi karin garaadka ayaa waxaa ku caanashubay garaadka guud ee deegaanada SSC Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac waxaana madashaasi maanta ka hadlay isima tiro badan kuwaasi oo khudbado muhiim ah ka soo jeediyay xafladda caleemasaarka Garaad Cabdirasaaq Garaad Soofe iyo sidoo kale siyaasiyiin kala gedisan ugu horeyn madasha ayaa waxaa daahfuray Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac isagoona dardaaran u diray garaadka guud ee gobolka Cayn Garaad Cabdirasaaq Garaad Soofe oo maanta lagu caanashubay ilaa iyo gobolka bari ilaa iyo gobolka waqooyi galbeed ilaa iyo mudug walaalaha iyaga nooga yimid aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa intaa haddii aan ka gudbo Garaad Cabdirasaaq Garaad Soofe Durraan waxaan leeyahay ku soo dhawow golaha sare ee dhaqanka Khaatumo aad iyo aad baan kugu soo dhawaynaynaa garaadka aad bedelayso Garaad Cabdilaahi Garaad Soofe odaygayagii buu ahaa daadihiyahayagii buu ahaa culimadayadii buu ahaa sheekhayagii buu ahaa kabaha aad buuxinaysaa kuwa yaryar maaha waa kuwa aad u waaweyn weeye kabaha aad buuxinaysaa hawshan mid ku cusub maaha oo Garaad Cabdilaahi gacanyarihiisii baad ahayd mas'uuliyadda baa kugu cusub ee hawshu waa hawshii aad qaban jirtay gacanyaraha ugu ahayd noogu shaqayn jirtay gobolka lagaaga yaqaanay ilaa iyo deegaamadan oo dhan aad nabadgelyada iyo wanaagga iyo isku xidhka aad kaga jirtay weeye ku soo dhawow ilaahayna waxaanu kaaga baryaynaa in uu kuu fududeeyo intaas kadib waxaa lagu caanashubay Garaad Cabdirasaaq Garaad Soofe waxaana si rasmi ah ugu caanashubay Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac madashana ayaa waxaa ka hadlay mas'uuliyiin tiro badan iyo sidoo kale isimo aan halkan hadaladooda lagu soo koobi karin ugu dambeyntii ayaa munaasabada waxaa soo gabagabeeyay Garaad Cabdirasaaq Garaad Soofe isagoona mahadnaq u diray cid kasta oo ka soo qayb gashay madasha caleemasaarka bacda salaan waxaan u mahad celinayaa dadka sharafta badan isimada madaxda kale cuqaasha ningarboodka gabdhaha noo yimid ee shirkan nagala soo qayb galay ee waqtiga badan na soo geliyey aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa mahad weyn baan idin celinayaa waad mahadsantihiin waxaan leenahay soo dhowaada mar labaad waxaan u mahad celinayaa dadweynaha reer Caymeed ee hawshan tirada badan soo qabtay ee 5 bilood ka soo shaqaynayay ee magacyada kala duwan leh ee guddiga qabanqaabadu kow ka tahay guddiyada ay sameeyeen kale ee dhalinyarada iyo hablaha iyo noocyada badan isugu jirta ay ku jiraan ciidanka nabadgelyada ilaalinaya uu ku jiro dadweynaha reer Caymeed aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa mahad weyn baan idin celinayaa waa mahadsantihiin waa midaysantihiin waa sharfantihiin waa qiimaysantihiin baan idin leeyahay intaa kadib idinkana ilaahay ha idin barakeeyo ilaahay danihiinna ha uruuriyo intaa kadib waxaan leeyahay isimo odayaal insha allahu tacaalaa waan idinla shaqaynayaa khayrkii iyo wanaagga aad ka shaqaysaan baan idinku imanayaa saasaad igaga talagelaysaan wixii wanaaga waan idinkala shaqaynayaa garabkiinaan taagnahay garabkiinana waan doonayaa waa u baahanahay saad u ballan qaadeen intaa kadib waxaan leeyahay
beesha mas-uuliyaddani dhiibtay mas-uuliyaddani saartay iyo beelaha ay isku danta yihiin danta dhow ka dhaxayso xilkan aad saarteen marka hore waa idin ilaalinaya insha Allah ta'ala marka labaadna waa idin shaqaynaya waxaan idin ku shaqaynayaa wixii aad idmateen dhaqan baad idmateen ha ilaawina xusuusnaada xilka aniga aad idmateen waa dhaqankaas aad iga sugtaan wixii kale idinka dayacan cidii aad u idmataan baa idinku maqan sidaas aad insha Allah ta'ala u ogaanaysaan waa idin shaqaynayaa sidii raggiiga horeeyay idinku shaqaynayay baan idinku shaqaynayaa haddii aan gaadhsiin waayana insha Allah ta'ala waa ku dhawaynayaa saas aad iga tala galaysaan insha Allah ta'ala Cabdi Casiis Aadan Jaamac TV-ga caalamiga ee Kalsan buu hoodle